isuduwaha wasaaradda warshadaha Somaliland ee gobolka Sool Maxamuud Cali Mareykan oo maanta warbixin gaar ah siinayay TV-ga bulshada ayaa ugu horeyn ka hadlay abaaraha ka jira guud ahaan gobolka Sool isagoona bulshada ugu baaqay inay Rabbi kaliya baryaan waayo isaga kaliya ayaa ka jabin kara abaarta haatan saameysay isuduwaha wasaaradda warshadaha Somaliland ee gobolka Sool Maxamuud Cali Mareykan ayaa sidoo kale ka hadlay inuu soo dhaweynayo wadahadalada maamulada Somaliland iyo Khaatumo shirkii caynaba ee beel kamida beelaha dega koonfurta gobolka Sool ay kula yeelatay wasiirro ka tirsan Somaliland iyo sidoo kale shirkii dhawaan madaxda Somaliland iyo Cali Khaliif ku dhexmaray caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa isuduwaha ayaa ugu dambeyn baaq u diray dhalinyarada ku dhaqan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn inay ku soo biiraan siyaasadda Somaliland oo fikir ahaan isagu aaminsan yahay isla markaasna uu yahay mas'uul ay ku dayan karaan cid u diidanaysa inay dhalinyaradu siyaasadda ku biiraan aysan jirin waana kan isuduwaha oo ka hadlaya arrimahaasi xaalad abaareed baa lagu jira waxaad gobolka ugu magacaaban tahay wasaaradda warshadaha maxay wasaaradda warshadaha gobolka Sool abaaraha kaga qayb qaadatay insha Allah iyo abaaraha kaga qayb qaadatay way soo ducaysay duco baa qadaraya in abaaruhu ilaahay baryaan oo aysan hay'ado ku xidhin iyo ganacsi toon abaarta in ilaahay ku soo jiyo waynu diriyo ka warshada gobolka dhow soo dhaweeyna gobolkuna wuxuu noqonayaa waqtiga ku jiro sanadka 2022 ay inta maanta ay joogaan ay ka badanayaan insha Allah warshaduna waxay noqonayaan kuwa wax soo saarka iyo tahriibta dadka ugu badan ka shaqeynayaan warshadaha insha Allah dhalinyarada waxaan kula talinaa inay nabadgelyada ka shaqeeyaan inay dawladda soo dhaweeyaan in wada hadaladan Somaliland iyo Khaatumo maanta u furmay ay maanta yihiin mid lagu dirsado mid marxaladii hore lagu jiray hadii qori iyo xabad lagu keeni waayay maanta in nabadgelyada lagu helo wada hadal iyo deganaan iyo wada qaybsi oo mid la soo dhaweyn dhalinyarada xal ayaa ka wada qayb qaata marxalad kastoo taagan tamaanta taagan Britain hadda tamaanta qayb qaadana Britain waa ka dhacsan dalkana idinka hal idinka haraya kuraasna idinka ku fadhina Britain maalin idinka degana kuraasna idinka hale ma garata annagu waxaanu ka shaqeynaa sidii kuraasna ay idinku hayn lahayd ma garata maalinta timaadana soo dhameystirtaan kuraasna idinka ku reejinayna annagu waa fursanana Charleska ugu dambeeyay ka faa'iideysanaya sidoo aragtaa wada hadalada Somaliland iyo Khaatumo dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa waa soo dhaweynaa kuwaas kuwa caynaba iyo kuwa dhici doona labadaba insha Allah kuwaasna waxa weeye wada hadalaasi oo wada hadalo guul keeni doona ma garata maamulka Khaatumo waa la sameeyay Afritonis ma ka qayb galay xillibaana la sameeyay erga tagtay ergadaasi waa ismadaasi deegaanka ismaha u soo laabmay ismadaasna maamulka sameeyay maamulku xulay saddex waxa weeye waaxda fulinta waaxda golaha dhexe wasiirada ah iyo waaxda dhaqanka saddexdii waaxood way sameeyeen waa lagu dhamaa maanta iyaga madaxweynaha Khaatumo ku xigeenkiisa golaha wasiirada u gartay inay wada hadal ku matalaan iyadoo loo dhan yahay maanta iyaga wada hadal ku jira ha loo daayo wixii ka soo baxan wadeegana hadii wax noo cunto ka soo baxan way noo cuntaan hadii wax noo cunto ka soo bixi waayeen xarajina in wada hadal sii socdaan Samiir Saciid Bala telefishinka madaxa bannaan ee bulsho la sacanad